ku caajisayaan soo marka sawirka marwalba newsada xataa waa aragteen hadda Yahoo Finance iyo haddaan tagnay Bloomberg sawir walba qoraal yar bay hoosta ka saaraan macnaheedu ay ula jeedaan in dadkii ay sawirka wax ka turjumay akhriyaan social media waa hoos gelin kartaa oo in social media qofka isticmaalo kadibna waxaa samayn kartaa blog wixii ka hadlayso kale ayaa qoraysaa balalala af Soomaali badan doorna inta cabbaar qofka markuu akhriyo blogaaga si uusan uga caajisan haddana sawir baa la dhaxgeliyaa sawir yar oo qurux badan la dhaxgeliyaa si uu kula qabsado anagana marka waxaan sameynay sawir yar u dhaxgelinay way sii socotay space la geliyaa mar walba waa space oo muhiim website-kaaga marka dhisaysid maxaa yeelay blogga marka sameynaysid ma la rabo qoraal fara badan inaad isku xijisid si uu qofku akhriska ugu raaxaysto waa inaad space yar u samaysaa space-kan u sameynay haddana qaybtii kale conclusion waa inuu lahaada wixii haddaan conclusion u sameynin qofkii xilli oo dhameena xilli kale lama socon doono insha Allah Cabdiraxmaan wax su'aala okay sabir kalaan gelinay kadib waa soo gagabeynay markii halkaas ugu baxnay saan hore u sheegana waxaad lahaan kartaa blogs aad u fara badan ayaa samaysan kartaa oo ah unlimited soo marka adigu baad xayiraysid qofku xayiri kara ma lahan halkaas aan ugu baxnay okay business-keena qofku wuu imaaday mar walba linkiga soo kubisana waa inay sheego website marka dhisaysid mar walba laba computer inay ku agtaalo waa muhiim midna waa hooshi baad ka wadaa midna testing because of wax walba aad samaysay waxaad u baahan tahay inaad iska hubisid ma la rabo dadkii wax qaldan inaad customer-ka siisid website-kaaga maanta soo fasaxdo qaladka ka imaado adiga mas'uuliyadiisa ku saaranta because of dadka qaar lama rabo inay ku wareeraan soo marka waxaan sameynaynaa testing aan ku sameynaynaa waxa aan sameynay as a customer-ka website-kaaga wuu soo galay wuu fiiriyay anaga hadda password inagu xiran password-keena wuxuu ahaa 1 2 3 4 sababta password-ka ugu xiran waxa waaye wili hol baan ka wadnaa website-ka qof aan anaga ahayn ma arki karo ama qofkii password-ka haysto okay qofkii website-keena wuu soo galay waxyaabaha uu fiirina waxa horta website-kan safe miya is it protected halkaasi magaceena horkiisa waxa ku qoran waa safe waa ujeeda one difaacnay oo qofkii hadda galayo informationkiisa is protected wax maahan website-yada qaar hadaa tagtid oo kale waxa waaye wuxuu ku leeyahay not secure yani safe maahan marka anaga keena hadda waa green saaran calaamadda waa safe marka labo wuxuu fiirinayaa wax aan qabano business-ka wa alaykum salaam waxaan rabnaa inuu horta kow arko page-kii noogu horeeyay kow ahay inaa sawir qaado business-keena uu yahay sawirada aan qaadno inuu arko qoraalyaal project-ga aan wadno waxaan oo dhan waa basic ugu horeeyay waay kadibna hoosna waxaa noo yaalo meeshii nagala soo xiriiri lahaa iyo social media okay ardayana linkiga u dirayaa copy link kan ay uga faa'iideystaan codka background-ku si nadiif ah u noqdo dadka kalena u sii share waa free 10kii lixaad ay noo socdo almost waan dhameynay alxamdulillah maanta waxaan ku faraxsan ardayda ugu horeyso Soomaaliya inaan ayako wiligood website sameeyeen inaan baray from scratch insha Allah soo markay waxaa gashan oo kale hadda kan oo kale waxaa ku qoran qayb waxa waaye oo soo leeyahay site-kii oo magaciisa uu ahay aad gashanaysa business name-kaaga address-ka business-ka haduu leeyahay waa muhiim business-kaaga iyo contact-ga email ama telephone number-ka qaybtan saacaduhu leeyahay waxaan shaqeynaa maalinta Monday-da ilaa Friday-da 10 subaxnimo ilaa 6 maqribnimo that's beautiful business-kaaga haduu saacad yani lahayn waa dadku ku reereen sidoo kale qaybtan wuxuu noo leeyahay follow us Instagram-kii Facebook page-kii Twitter-kii sidoo kale ula socdo waxaan hor u sheegay any social media waa ku tarsan kartaa because website-kii anaga dhisan anaga go'aanka iskale wax alaala waxa meesha gelino ay dadka arkayaan soo markay aniga kan waan ka helay waa save gareysana marka intaan save dhihin waxaan waa ina title-ka saxa marka site-ka magaciisa anaga magaca la baxnay maxaa la baxnay waxaan lahaa Somali Eco aan dhahnaa magaceena waa kaasa address-keena kale waxa leenahay address-keena waxa waaye waxa leeyahay 123 wadada waxa dhihi karaa kale Soomaali maadaama aan kilometer 4 oo kale kilometer 4 wadada magaalada waxaan dhihi karnaa oo kale Muqdisho magaalada business-keena ku yaala Muqdisho waaye hargeysa ku yaala macna hargeysa hargeysa sorry oo sax waa hargeysa sorry ana reer Muqdisho ah hargeysa sidoo kale gobolkan waxa waaye hargeysa la soo gobolka hargeysa waqooyi galbeed
okay waqooyi galbeed wg zip code-keena waa kolo 345 email-keena waa muhiim waxaa leenahay edit marabo email-ka waa edit gareyn kartaa ama any link yaa gashan kartaa email-kii lii maahan inuu khasab ahaado linkiga rabno ayaan gashan karnaa gmail aa leenahay gmail-kana waa gashan kartaa linkiga aragtina waa gashan kartaa so marka waxaa sameynaynaa gmail-keena soo copy gareynaynaa username-ka copy aa dhahanaynaa halkaasaa gashanaynaa edit aan leenahay kan ku jira iska saaraynaa control v waa soo copy gareynay waa best aan ku dhahaynaa sidoo kale waxaan sameynaynaa maxaan dhahaa Somali eco edit email-ka dhan aan soo copy gareeyay waxaan rabaa keliya inaan email-ka keliya aan soo qaato email-ka keliya qaybta sare ka tirtir qaybta sare bes ka tirtir waxaan rabaa inaan iska tirtiro yep qaybta sare example baan qoray example ka tirtir email-ka so qaybta kalena waxaa leeyahay gmail-keena aan dhahaa gmail-keena maadaama Soomaali nahay apply so gmail-keena numberkana sidoo kale waan tirtirayaa waxaa leeyahay tusaale kale email-ka hoos gelinaya haddii la rabo kadibna waxaan dhihi karaa numberkeena waxaa waaye maxay hortan Soomaali numberada Soomaali 252 yes 2526 aan dhihinaa 6 markaa dhahno waxaa leenahay 15555 okay that's numberkeena marka so apply aan dhihinaa oo save gareysanayna then hadhow qofka customer-ka business-keena saacadaha la furo saacadaha 10 subaxnimo leeyahay tahay waxaan furaynaa 7 subaxnimo 7 am ilaa 6 pm ama waxaan dhihi karnaa 6 subaxnimo ilaa 6 maqribnimo social media-hana waa gashan karnaa hadhow any social media link-iga edit aa leenahay waa gashanaynaa so marka kadib waxaa leenahay save waa muhiim waxaada inaad save gareystid haddii kale way kaa lumayaan so marka waxaan rabaa inaan fiiriyo all of them inay isoo baxayaan all pageska inaan sidaas isla mid aan ka dhigay ama okay good so hadda waxaan sameynaynaa dib aan ugu noqon doonaa hadduu ilaahna gaarsiiyo waxaan dib ugu noqonaynaa maxaan dhahaa website-kii inuu inoo soo baxay in kaleeto okay waa ujeedaan so marka wixii aan qabanayna waayay hoosaan tagnay hoosna waxaa noo soo baxay magaca business-keena oo ahay Somali eco wuxuu ku yaalaa kilometer 4 Hargeysa waqooyi galbeed zip code-keena email-keena iyo number-keena waxaan furnaa maalinta saacadaha aan furno waxaa waaye Monday-da ilaa Friday-da 6 subaxnimo ilaa 6 maqribnimo sidoo kalena waxaan dadku u gelinay Instagram-kii Facebook iyo Twitter-kii so marka qofkii maanta sawirkeena meeshaan imaado aad buu ugu heli doonaa maxaa yeelay xoogo waxaan nahay professional oo aad buu ugu duwan yahay aad baa looga helay sidoo kale qofkii wuxuu tagayaa our teamkii u arkay haddana aad bay u qurux badan yihiin teamkeenii muuqaalkii gelinay wixii aan sameynay wili Soomaali way nala joogtaa because of isma bedelaay kor iyo hoos isma bedeli doonaan kor website-kaaga wiligiis sidaas un buu ahaanayaa hoosna waxay ahaanaysaa wiligeed sidaasba okay bloggii sidoo kale blogyadii aan qornay oo kala doonaay kor iyo hoos sidoo kale waxaan sameynaa appointment balan aan dadkii qabsanay sidaas iyo si lamid ah so sidoo kale waxaan gelinay about us dadka inay akhriyaan waxaan ahaynay vision-keenii iyo mission-kaan lahaynay dhac kadibna logoskii hoosna waa sidii si lamid ah contact us sidoo kale numberaan gelinay iyo magaalada degannahay iyo hoos so marka contact us ayaa wax badan ka bedelayna marka maxaa yeelay inta wax badan baa ka maqan formkii dhan baa ka maqan so marka formkaas waa inaan buuxinaa page-ka waxaan tegaynaa contact us oo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabnaa wax badan inaan isbedel ka sameyno waxaan tegaynaa qaybta contact us-ka waan edit gareynaynaa because of formkan dhan iga maqan waxaan rabaa formkaas halkaas inuu ii soo galo so marka edit aa leenahay waa edit gareynaynaa background-ka sidiisa ay ahaado waxba ka maqal doono waxaan rabaa formka inaan wax badan ka bedelo so marka form email message waxba ka maqal doono qaybta storage-ka email aa gelina marka email-kii oo hadhow wixii markaas meesha la geliyo email-kii kusoo dhici lahayn waa muhiim korso marka waxaa gelinayna anaga email-keena waa Somali eco Somali eco markaa gelino halkaas ayaa leenahay connect no hold on control v email-ka connect leena marka hadhow qof formkaas markuu buuxiyo waxaa inoo soo galayo maxaan dhahaa email-kii halkaas lagu soo diraya so marka waa inaan aan dhahnaa save markaa dhahno kadib waa save gareysanayna laakiin horta aan iska hubiyo intaanan ka bixin mar walba waxaa muhiim inaa iska hubisid waxaa leenahay edit background-ka fiirinaya waa ii muhiim
sidoo kale waxaan fiirinayaa meesha storage-ka ah oo new form aan dhahaa magaca ku qorneed storage waxaa lagu keeni doonaa Somali Eco wax walba la soo diray halkaas ay geli doonaan advanced-gana waa qaybtaas hadhow ayaan ka wada hadli doonaa markii wixii oo tusaale kale qofkii markii ay gaarto kale thank you waxyaabo lamid ah inaad u dirtid oo linki waxyaabahaas oo kale laakiin hadhow ka wada hadleynaa qaybtaas waa kana like marketing markaa sameynaysid website-kaaga save aan dhiheynaa waxaan tegaynaa qaybta contactiga marka contactiga markaan ku noqono waxyaabaha inagu muhiimsan oo kale waxaa ka mid ah inay wixii hadda isbedelaan formkii qofku soo baxayo so yes hadda ay jeedaa formkii qofku waxaa la dhahaa tusaale kale magaciisa waxaa la dhahaa qofka farxaan ayaa la dhahaa farxaan cali emailkiisa waxaa la dhahaa oo kale iska dheh Somali Innovation waxaa leeyahay walaal sabir ayaan idinka galay laakiin weli ma aanan helin maxaa qaldan taas waa su'aal ah oo lagu soo diro markii lagu soo diro hadhow customer-kaagii emailkii adigu ku soo gaaraya marka emailkii markuu ku soo gaaro waa in aad ugu jawaabtaa customer-kaagii emailkii ayaa ku soo gaari doono emailkii markuu ku soo gaaro formkii waa kana formkii markuu ku soo gaaro waad arkaysaa waxaa sawir ku soo dirtay farxaan cali sawir maxaan dhahaa message ku soo diray emailkiisa waa kana message-ku ku soo dirna waxaa waa walaa sawirka idinka galay laakiin weli maanan helin okay waa aragtimaho reply aad leedahay marka oo reply garaynaysa waxaa leedahay walaal beri ayaan idin soo beri ayuu diyaar noqonayaa so marka u dirtid automatically customer-kii halkaas ka wada soconaysaan marka halkaas ka wada socotaan suuq waxaa leeyahay save emailkii Somali Innovation tusaale haday u soo qaadanay Somali Innovation aan furi doonaa refresh aan dhihi doonaa emailkii halkaas iskala soconayna sugayna wax yar okay waa kaasa customer-ka halkaas iskala soconaysaa waa u soo reply waay mujudo RB waxa waa soo reply galaysay form of submission ka waay marka message-ka ku soo diray waa kana anoo soo reply garay waxaan soo diray haddana waqti xalalkan waa website-keeni weli ma diyaarsano oo howl baan weli ka wadnaa saas ay tahayna data-da aan sameynayno waa live waa wax markaas dhacayo walaal beri ayuu diyaar noqonayaa soo mujidi labadiin halkaas communication ka wada sameynaysaa soo marka أنا waxaan dhihi lahay inay qaybtaas aad muhiim u tahay oo contactiga qofka ku soo darsado hadoosan ku soo darin waxyaabo badan ayuu iloobi doonaa halkaas waa isla fahanay contactiga waa soo gelinay maxaan kaloo ka tagi karnaa marka inaan weli research badan aan sameyno waxaa kaloo fiirinaynaa website-ka sida customer ahaan u galaynaa let me go back to as a customer waxaa sameynaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo qaybtii contacti ahaas okay waa garta marka waxaa kaloo sameyn karnaa qaybta advanced-ga laakiin oo soo jeesanaynaa abaar aska wax kale kama qaldono way la qurxan tahay appointment-ga sidoo kale waxa uu kama qaldono oo qofka maalinka rabo ayuu dooran karaa iyo sanadka rabo asaga go'aan iska leh halkaas oo ka dooranaya hoos iyo korna ay qurux badan tahay maxaan hadda ka tegaynaa marka is dhihi kartaan soo hadla marka maxaa laga tagi karaa is dhihi kartaan hello mali maqlaa wax su'aala marka ustaad su'aal ana wato laakiin xogaa waa igala noqo casharku ka baxsan yahay okay casharka haduu ka baxsan yahay sub recording-ka joojinaya waa ay weydiin kartaa hal mar ku soo celisaan u duuba dadka kale u arkaan way ficnaanayd because kama baxsaneen isla su'aashii leewahay markii ku dhahay casharku ka baxsan yahay calaashaan macna casharka maanta adigto ka baxsan yahay laakiin hal mar nagu celi marka waxaa rabaa maxay saddex su'aal wataa saddex su'aal waxa waaye midka koowaad sidee maxaa la yiraahdaa ku xafidi karaa fiidiyoyadii aan duubay oo aan soo dhigay website-ka ilaa dad waxaa jiro fiidiyoyada inay degsanaan isku dayaayo adna waxaa rabtaa in package-yada ku gadmaan fiidiyoyada ku gadmaan sidee marka ku xafidi karaa labo sidee marka ardayga isku kaysoo diiwaangeliyo oo iska soo oo lacagtii wax aan ka qaaday sidee username iyo password name
goonaha ugu sameyn karaa badanaa website-yada wax ka barto ku arkay password name username goonaha lagu siinayaa oo lagu leeyahay ka soo halkaas iyo tan saddexaad oo ah sidee maxaa la yiraahdaa I think su'aasha saddexaad waa xoogaa maskaxda ka baxay paymentiga okay paybalkaasi sidee ugu soo xirayaa oo kaarka iyo paybalka kaaraba ugu xiran karaa ama xataa EVC plus oo kale hadda damco maanta ugu xiran karaa EVC ga waa easy su'aashan ku soo noqonaa ko qaybtii casharada website-ka hadda aan sameynayno horta website markaa sameynaysid so many waxaa jiro website qaybta hadda aan website-ka aan sameynayno waxay ahayd idinkaa doorteen keliya photoska oo qofkii locationkaaga u imaanayo oo ballan uu kaa qabsanayo laakiin haddii noqoto paymentiga inaad ka qaatid through the internetka laba siyaaba ku banaan asa photoda markaa u hadlo payment waa ku xiri kartaa yes qaybta sintiga aad degaysaa waxaad degaysaa billing haddii rabto qaybta billingka haddii rabtid waxaad ku xiraysaa maxaan dhahaa waxaa rabaa inaan ku xiro paymentiga so waxaan sameynayaa waxaan tegayaa I think inay profile ka tahay no profile-ka waa donorski waxaa rabaa inaan tago qaybta setting la tagay ay noqonaysaa setting aan ku noqonayaa waxaa rabaa inaan geliyo paymentiga so billing holland billing waa billingki laga rabay ma rabo kaarkii iyo waxaas midka aniga iga goosanayo waa kaas iga rabaan qaybta waxaa rabaa paymentiga ah so marka haddaa aragtaan ila fiiriya payment connect account maahan waxaa rabaa qaybta paymentiga inaan soo saaro I think advancing inay tahay yes advancing hold on 1 second waxaa rabaa qaybta paymentiga aan ku xirnaysa Stripe-kaaga iyo maxaan dhahaa Stripe-kaaga iyo business information no location-ka business-kaaga waayo paymentiga through waxaan rabaa inaan arko membership yes so yes waa kana so marka qaybta waxaa sameyn kartaa schedule-ka dib u setting-ka dib u noqonina qayb waxaa sameyn kartaa oo adiga hadda business-ka oo kale adigoo leh sawirka ina business-ka uu yahay business photo dadka laga qaadayo qayb waxaa kusoo dari kartaa muuqaalo aad soo gelinayso kale oo videos ah oo membership area ah taalo kale qayb membership area dooranaysaa oo waxaa leedahay kale membership area waa furay create membership area markaad create garaysid waxaa leedahay create halkaan ayaan ku dhufan doonaa create so create markaan sameeyo waxaa leedahay courses oo kale inkastoo aan kuu sheegi doono waddo kaloo ka fudud waddadaani waxaa waaye casharada inaad soo gelisid oo kale oo normal casharo ama newska even dadka newsyada qaar lacagaa bixinaysaa si aan news ku lehin so tusaalo kale waxaan dhihi karaa courses inkastoo aanan tan idinkula talin inaad course ku samaysiin price waxaa ka dhigi kartaa one time inay bixiyaan ardada waxaan dhahaa kale $43 $43 inay bixiyaan oo kale waxaa dhigi kartaa 43 waa qiimaha uu normalka average-ka ama waxaa dhigi kartaa 40 oo kale inay dadka bixiyaan oo one time ah ama waxaa dhigi kartaa monthly inay bixiyaan bishii oo kale $40 iska bixiyo waxaa dhigi kartaa bilowba inay $40 bixiyaan ama waxaa dhigi kartaa koorsadan waa free adaa options kale ma fahanti so marka laakiin qaybtani is gonna be like less professional balse wax oo loogu talagalo gooniya jirta in tusin doono insha Allah so marka waxaa leeyahay page aan ku dari doonaa waxaa leeyahay pages waxaan ku dari doonaa videos qayb videos oo kaliya ah waxaan ku darayaa membership area okay membership area waxaan leeyahay paymentiga horta waxaan sameynayaa paymentiga kuwa kasoo galayeen membership area waxaan leeyahay hal mar waxaan leeyahay midkeen dooranaa build it dream it tusaalo kale kan igu dhufo the first one markaan ku dhufsado waxaan leeyahay join us markay dhahaan membership area intaan kusii dheeraan sii sharaxin waxaa rabaa horta inaan ku tusiyo let me edit show up sign up so tan waan ku tusin doonaa hal mar inkastoo aan kula taliyan website-kan uu yahay qayb education oo geliya qaybtaas membership-ka samayn kartaa hadhowna wixii aad soo geli sidoo kale dadka markay dhahaan join ay kaaga heli karaan so marka isla page-kii markaa tagno qayb hoosaan samaynayna waxaa leenahay waxaan ku diraynaa price monthly halkaas kasoo bixi doonaan oo membership area ah
laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ku tusiyo qaybta pricing oo kale inay dadka kala doortaan option is pricing-ka add section aan dhahaa waxaa leeyahay pricing pricing tusaale kale pricing inaad dadka jaanis siiyo bishii maxaan dhahaa price 1 inay dhahaan qaybtaas iska bixi price 2 inay qaybtaas iska bixi dhahaan so marka waxaan sameynaynaa mid kamid ah dooranaynaa option 1 inay dhahaan $20 option 2 inay dhahaan $40 saddex option inay sii sidoo kale waxaan sameyn karnaa waxaan dhigi karnaa oo kale in hal mar iska bixisid koorsado dhan ama ma istaadku oo saddexda option la siinaan amr taas u baad cable su'aalo kale saddexda option aad siin kartaa oo kale oo ku dartamaho saddexda option oo kala siisay adaa iskale option 1 waxaad dhigi kartaa noocaasi ama option 2 tusaale ka soo qaadna waa sameyn kartaa laakiin hadday noqoto in aad maxaa dhahdaa courses clear so and haddii aad rabtid I hope in like qabtay sorry guys telephone ay soo dhacay and waxaa sameyn kartaa waa dooran kartaa laakiin haddii uu yahay website-kaaga education oo clear oo aadan wax kala sameynaynin tusaale ka soo qaad aniga waxa website-kayga aan sameynaya waa education oo clear ma sameynayo service kale wax kale qaybta membership waxa loogu talagalay oo hadhow course-ga u bixisay ay dadka soo arki doonaan qaybta courses markay tagaan oo kale ay arki doonaan hal dhow course ugu soo bixiso waa additional product haday sidoo kale xataa qasama inay course noqoto waxay noqon kartaa qoraallo PDF ya u gelin kartaa codada u gelin kartaa waxyaabo badan aad sameyn kartaa linkiya u gelin kartaa podcast u gelin kartaa qaybtaasi ha laakiin hadduu website-kaaga yahay education oo clear oo aadan wax kala sameynaynin platformo kala gooni ah loogu talagalay jiro oo hosting loogu talagalay education oo clear waan isku darsan kartaa xataa waxaa sameyn kartaa isla website-kaagii dadka markay tagaan oo kale maxaan dhahaa oo tusaalo kale waa kana hadda Somali Eco waaye website-kaaga Somali Eco markuu yahay oo kan oo kale qofka doorto halkan oo kale u soo gelin kartaa courses markay click dhahaan redirect wuxuu ku sameeyaa platform-kii kala isticmaalaysa soo taasna anaa ku tusin doono website waxa jira xatir Soomaalida aysan aqoonin oo loogu talagalay education ko clear wax kale loogu talagalay su'aasha kale ahayd ma ku soo xiri karaa tusaalo kale EVC go kale markii lagu dhaho kale waa wax easy ah maxaa yeelay xataa qofku waxa dhigi kartaa qaybta membership markaa sameeysid oo hadda aan sameynayno EVC ga as qoraal u gelin kartaa sida hadda anaga contact as number-ka u gelino kale inaad halkan u soo gelisid contact as ko kale aad dhahdid hey payment markaa bixis lacagta halkaas ku dir email-kaas ama number-kaas ama halkaas ku dir oo soo gelin kartaa si ay u arkaan ama waxaa sameyn kartaa platformada kale aan ku tusin doono automatically ku xiraysa automatically markaa ku xirtid qofku markuu oo course-gaad iibsado automatically shirkadda lacagta raba in lagugu diro kale ay link ku gelinaysaa so message markuu ku soo dhaco oo payment ah oo hebela ku soo diro through website-kaada inaad isku xirtid automatically qofka enroll asaga ku sameynayo hadhowna wuxuu leeyahay sign in email-kiisa iyo wuxuu gelinayaa first name last anaga tusaale kale Somali Innovation ka soo qaad website-keena Somali Innovation intuu rabo kale hal recording-ka joojin Somali Innovation oo kale koorsooyinka hadda u dhameeyay kuwa halkaas u socdo halkan dashboard-kiisa waa akoonkiisa kala soconaa ma account hadoro password-kiisa iska bedeli karaa maxaan ah balki magaciisa location-ka time zone-ka uu joogo whatever ay tahay Somali whatever time zone ay tahay halkan password-ku iska bedeli karaa hadoro password-ka inuu mid cusub gashto inta shahaadooyinka uu talagalnay waxaa rabnaa ardayda shahaadooyin inaan siino halkaas kala soconaya notification-ka kale casharo cusub hadii la soo geliyay haddoo bilin lacag bixinayo kale oo bilin free ah jiro kale haddoo casharka free yahay kale wuxuu dhahaa casharkan waa free haddoo lacag yahay kale lacag waa order history go kale history-do qaato tusaale kale anaga order aan siinayna ardayga hadda koorsado qaato kale waxaa leenahay koorsada order aan u sameeyay aniga hadda so orderka wuxuu arkayaa koorsada orderka waa qofkii labaad waa koorsadaas hadda iska diiwaan geliyay waxyaabaha inuu tusinayo kala rabaa qofkii labaad waa iska diiwaan geliyo product oo iska diiwaan geliyo waxa cloud computing oo ardaygaas iska diiwaan geliyay taariikhda iska diiwaan geliyo waa bishii 4/12/2021 staraska complete waa because waxa kuma jiro hadhow inta kala soconaysa expiration date ay lahaan doonto xatir koorsada oo arday ka dhaceyso
sidoo kalena lacag hadduu bixi waa zero marka hadhow orderka markuu ku dhufto information badan oo soo baxaya waqtigii orderkii lacag hadduu bixi lacagtii hadda waa zero hadhow xataa receiptku daawacan kara arday print inoo dhaho ayuu daawacan karaa receiptkiisa halkaas loogadeena ku dhijiya xataa receiptka loogadii Somali Innovation la socoto oo receiptka markuu ardayga daawacdo iyo koorsadoo qaatay cloud computing lacagta intuu bixiyo haddii free tahay waxaas oo dhan marka qaab kale waaye qaabkaasi educationka way ka duunaanaysaa qaabka maxaan dhahaa producting caadiga soo marka kuwa gooniya loogu talagalay kuwaasna ana ka saacidi doona xataa ardayga email u dhacayo waxa lagu leeyahay ardayga markuu course iska diiwaan geliyo welcome to Somali Innovation so marka emailkiisa la tusinaya ardayga iyo URL-kiisa marka taas way ka duunaan doontaa laakiin kan hadda aan sameynayno waxa waa mid oo normal ah oo taalo kale yani business caadi ah laakiin businesska education hadoo noqdo waa mid u gaar ah waana ku tusin doonaa insha Allah I hope su'aashaada inay ka jawaab insha Allah ustaad mid kale waxaan rabaa waxaan taasna waxa laga helayaa isla meelaha kale hadda ay tilmaamayso ku tusaydeysay casharada si loo ilaaliyo macnaha yes waxa la digsan karin yes kamani badan ay jiro shaqadoodu taaba inay protect ku sameeyaan casharadaada qofka si walba oo sameeyo ma digsan karo halkaasi ayaan su'aashaas uga baxayaa so marka waxaan rabaa in su'aalo kale hadii jiraan isweydiino because of already business kan waaba dhameynaa wax kale oo hadda dhiman isma dhihi karaan inay jiraan ustaad wax yar markii password markaan ku xirino say ugu xirina website settingka yes settingka tagaysaa halkan ay tagaysaa qaybta site-ka ku qoranta waaba kan ugu horeeyo site-ka ku dhufanaysaa kadibna password public marka ka dhahdo ku weydiinaa private ka dhigan kartaa oo kaliya la arki karo qof kale markayo qaybta password-kana waa kaasa password u sameeyaysaa 1 2 3 4 u sameeyay kadib halkaas kora save leedahay ustaad Hamar waxaa rabaa inaan ku dooraale ah waxaan hadda ana sameeyay meelo soo tootor masqadka waxaan hadda ana website-ka hadda sameeyay dhamma ka kacbaa mise waa oo mise anoo kan hadda haysta iga caawin kartaa mid kale linkiga kalena igu xirto waa kugu xiro kan ka kacma bahan be waa hooshaada wado sidaad u wado kan kalena waa lagu xiraa oo kaliya waa integration wax la lahaa jiro oo website la isku xirxiro 5 website ilaa 10 website isku xirxiri kartaa ma fahanti dad baa waxay iibiyaan website caadi leeyihiin courses books maxaan dhahaa seminars events so many things sameeyaan ma fahanti marka waxaas oo dhan waa hal website isku yahay hal website la isku keeni karaa page laakiin dhowr domain baa sameysay marka sameysay hal website isku keeni kartaa no domain uma baahnidbo linkiga website-ka bisa u baahan tahay domain-ku waa waxaas oo dhan waxay soo hoostagi doonaa hadhow Somali e-commerce ka iibsana ayay soo hoos imaan doonaan halkaas ay hoos imaan event domain-kaada kuwaada ay hoos imaanayaan waxaa jira integration la dhahayo oo lagu xiraayo ma fahanti insha Allah ustaad aywa ka sugaad wilayare wax kale su'aal ah kaasoo aan waxa rabaa maanta markaan kan dhameeno oo already waan dhameynay birito waxyaabaha sameeysan in asla fiirino oo aan ka sii gudubno oo mid kale aan sameeyno kale maxaan dhahaa markaan ku noqdo page-kayga oo aan sameeyno maxaan dhahaa kale oo kana delete iska dhahno oo 3 ilaa 4 website aan kala duwan aan isku dayno inaan sameeyno ustaad Hamar mukluuday kala maxaa la ka in sameeyay saaxoga iga jikinto aywa ii khaldan linkiga soo gali zoom-ka may zoom kan shashada miisin kartid shashada leh yeah oxygen kara share oxygen okay aragtana fila ani kasmi waa kana ustaadu hada fiiriso home-kiisa no kan markii as student amal u fiiri as customer amal adi hadda waxa u fiirinaysaa sidii maxaan maamulkii ka bax maxaa sameeyaa ma kana link ana qaataa miya no linkigaas aad u dheeriyaa linkiga sida loo bedelo soo ma taqaanid home-ka tag hal mar home-ka ku noqo meesha home-ka geeska kor geeska kore qaybta setting-ga tag waxaad tagtaa site-ka meesha uu koreyso private ku yahay hada site-ka kor site available no ka noqo site-ka maahan ka noqo hal mar waxaad tagaysaa
waxaad tegeysaa was it site-ka Holland domain tag domain domain yes domains tag domain tag waxaad tagtaa marka use qaybtan hoose qaybtaas hoose marka hadda magaca ka bedelam rename de ka bedelo Halkaas. wax yar ka dhig oo la soo xasuusan karo intaas ma dhigi karaa yeah okay caadi adaa iskale waxaad marka hadda linkigu wuu qurux badan yahay marka sida hore wuu dhaamaa hadda soo copy gareysa marka waxaa isticmaalaysa hadda Chrome mid kala tag marka Chrome dhan ka bax Safari-ga isticmaal Opera fur hadda rabto Opera ma kan arjeen oo ka hadda best ku dheh marka intaas hore iska titir intaan horaa no ma caadi ku galay no control v hal mar iska titir kaas waxaa rabnaa inaan aragno website-kaaga soo maha intaa hore iska titir marka delete ilaa.com ka tegeysa .com almar calaamadda la titir waxaa dhahdaa backspace ka isticmaal titir weli kaas oo link dhanaas hayay hadda enter dheh marka intaas ku okay brightfield ahno Chrome-kii ku noqo waxaad ku noqotaa setting-ga tag site-ka password geli kan ugu koreyso ku dhufo password geli 1 2 3 la iska dhaha direct hadhow bedelo okay save dheh meesha ugu koreyso save ku noqo markee mar labaad linkiga qaadanaya maskiin no ku noqon caadi Safari-ga ay ku noqo refresh dheh bis bakana okay ma haye jeedid home-ka waa kan sidaan u sameeyay soo ma jeedid ma sha Allah wallahi aad buu qurux badan yahay haa laakiin cilado waxay iga haystaa inaan macnaha hataa aboodka daa fiiri sidoo kale ma jeedaa contactiga oo kale asigana waa sameeyey ma jeedido ma sha Allah marka cilad waxay iga haysataa lacagtaas inaad ku xirto lacagtaas inaad ku xirto iyo waxay cilad iga haystaa bes sida xoolaha u ilaalsan lahaa dee meeshaan waxaa rabaa inaa ku keediyo casharada ku keediyo marka waxaa rabaa inaa ilaaliyo kow labana waxaa rabaa oo la degsan karin labana in qof walbo sida dadka camal adaa sheegaysa inuu password meel adig gooni uu kasoo gali karo oo aniga ardayga baa isku wareerin macnaha hadda tusaale package raba inaa gado hadda home-ka tago I think home-ka tu ahaa magacaaga waa home-ka kaasoo magacaada ka dhigata Soomaan home-ka hadda tusaale kale home-ka taa ma rabo meeshan aan rabo xoogaa package-yadan haddaa macnaha package-yada waxaa raba qofka inuu si oo what meeshan waxbaa ka khaldan dhimaantan ka tusaa kan waa saxiix waxaa rabaa meeshaan xoogaa meeshaan ma jeedaa package-yadan oo kale waxaa rabaa qofka kan keligiis inuu garan karo oo kan maxaa la yidhahdaa uusan soo geli karin haddana hadduu intaanu package ilaa iyo wax package ahaayo dhan inuu qofka si khaas u gadan karo oo maxaa la yidhahdaa package-yada kalena uusan geli karin halkii package-na password waxaas uu asiga khaas u leeyahay uu ka daawan karaa sida tacmal aad sheegayso kale labaas mid uusan in laga caawiyaa rabaa inaa ilaalsan karo in qofka uu meel gooni kasoo gali karo iyo in maxaa la yidhahdaa numberkeyga iyo ku xiran karo ama paybalkeyga barama bangigeyga iyo
kaarkayga bangiga macnaha. okay good taasna waa la sameynayaa waa lagu soo darayaa haddeertaan intaa samaysaaba waxay tahay waxaanan caadi ahayn wallahi maasha allah aad u qurux badisay sawiradan aad u qurux badan yihiin inkastoo ay sawirada yacni qoraalada aad gelgeliso oo fiicnaan lahayd horta talamana weydiisatay mise feedback kama bixin karno ma waa ka bixin kartaa ay ardaydan jaanisina marka ka bixiya ardayda jaanisina inay ka bixiyaan maasha allah aad buu la qurux badan yahay waa website aad u qurux badan inkastoo talooyinkii aan siisay oo ay ahayd kor social media kor lama geyn karo hoos baa la geyn karaa maaragtay about me iyo contact us wallahi sida kale waxa weeye good way laakiin anagu heerkan wali maana gaarno waxa weeye design-kan iyo in sawirra maaragtay maxay tole in salon isku day horta macalinka macnaha waxa fiican matqaana isku day waxa ibn asmis ani wallahi been min shay wax walba ana xalinay wax walbo حتى معانك مقولة وين صوبته أبداً معانك وحش سمينا سيد هذا السويردان كله إنها سوق اليوم باك جراوند كله إن هذا السويردي عن كده ضعيف وكل هذا فيري هذا كله بتو حالي هذا بيش كده كله موجود هذا كانوا كله سوير كانوا كله موجود هذا وحب يعني أنا هكذا كيل تجريه وهذا أنا وهذا ده أنت فول كده وكده أنت ده سوير كان هذا باك جراوند كجلي سو موجود qoraalku ka baawar badana macnaha qoraalku ka baawar badana sawirka arkay qoraalka daciif noqonaa taas waa marka sawirka daciif ka dhigaa oo kale qoraalka u soo baxo macnaha waxyaabaha wax cilad marba cilad ay hor imaanayso in xalliyo isku dayaya inuu macnaha ka dhigay in xalliyo laakiin marka waxa dhaafi waay xataa waxa isku dayay in akoonkii hadda macalinka waxa weydiinaya in sameeyo isku dayay laakiin waa dhaafi waay taas zaid ay ugu adkaatay حتى الديزاين كانوا هذا وحير recommendation فوق الدرا colorist كهرت استعمال السيت 2 and 3 يصير له وين تسميسيد بدنا واحد سمين كرسا color code دون سينات colorist كصوب حجرة يا colorants قادن كرين كوكا أنت بدنا واحد سمين كرسا color جوجل كنت تكتب بكوكوري كرسا color.com كوكا colorist كوكوتصيا أنت قادن كرتا يسكو صوب حيسا كوكا انت بدن لaba color ila 3 color ha ka badin kooka website kaaga sameynaysid design talabaad farto kale font kan oo kale laba design oo kale waa inaad qaadatid oo kale oo isku soo baxay laftigeega xagga pictureska amba pictures names inaad ku yirdiisid inta badan waxa qurux badan pictureska bixiya humaaga qofka siin karayo kale imko kale hada kan oo kale na ka saaro ها ممكن كله بحكي إن فيسبوك كله ها مي ها أنت علم ناس وكله كده حسرتي ساكوير تيسيد عالم سمها عالم كده حسرتي أو فرق ساكوير تيسين ها أو صار لسه ديزاين كريم كتنا كله حلو صار ديزاين كريم فرق كان إيش هيك فوتوشوب كله هذا أي كله هذا كوكا وقروح بدين سا كله لكن كلاريسكا دي بغير نقو إن وحنا ديالتها براند كلر mid ku khaasa adiga oo website-da kale ka duwan tahay loogadiyo kale looga yar qurux badan inaad samaysatid amba magacaaga ka dhigtid amba shaambad yar kale oo picture nooc kale u sameyn karaysid sida kale ma sha Allah aad u qurux badantay dadaalkaagu aad xaq ka sii wada insha Allah walaal maasantahay ay ustaad adne talada adii dhiman ardayda si marka hore ku socdo talaha la siiyay idinku idin sugayaa mise hurdaa idin la tagtay aniga inantii kale